وحانين غارسة جيجيجا adiga Ethiopia Kenya taariikhdiisa taala ee Soomaaliya ma bataalabo maxaa macalin waan yaqaana oo waan naqaana nin maxamed siyaad bar ku soo jeedo waaye taariikhda dhaxmartay inna doodi ka hadal doodi aad dhageysanaysa lagu jeeday hadda aan falaaqay anagu aamus ambo aamusna inta adkeysiyada aan falaaqayo ما تقدر labada nin yaa kula dood fiicnaa doodda raba aniga taariikh iyo dood iyo dalka baa dil dhoo aniga nimankaas Mareyxaan u aqaan aniga ogaadeen dalka ma degaan way waa bas goolaha soo soo waa maqlaaya dib male macnaha doodda waxa iga yara dabagay xogaa waa ka soo yara daahay aan kala codeeyo doodda anoo ka eegayso ma sha الله لما كنت دودي مريحاني وقاعدين اوغا قيبتي هore waa soo gaaray macna mariis wasaaraha looga dooday ama dhul baa looga dooday muxuu yahay aan ku siinay salagle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار عبد الله لسه وقت سلام مركم هذا أنا صاحبت دود دان ما شاء الله تبارك الله دود رجع ويد دودين ninka kilaasa uu afgooyay aflagaada badan ma uusan geysanin si fiican buu dooday taariikh sharaf loo sheegtay haddana dooda khitaamu misku ilaahay dhahay waxa si fiican maartay doodii oo kilaas watay u saxay maxamed cali wuxuu yiri Jubbaland baan ka hadlayo yiri caasimadda Jubbaland bu'aal waxa uu yiri qeybad ka leedahay badada qeybad ka leedahay afmadow qeybad ka leedahay Jubbaland lagu sheegay waa intaas intina asaasiyo wuxuu qeybad ka leedahay Soomaaliya waa isla degtaayo qeybaha ugu muhiimsan inay leeyihiin buu sheegay beesha ogaadeen ma sha Allah tabarakallah asaga guushi soo hooriyay maxamed cali ninka kilaasna de uu afgubaystay laakiin gobolka gada taariikhda martay dadka degan kama hadlin in lala dego Mareyxaanka kama hadlin gobolka dhan waa la isla degaa eelwaaqo waa la isla degaa garaa iskale doolow gawaabina iskale luuq gasaar gudaa iskale baar dheer ogaadeen raaxaween leysaan eelay ayaa iskale saas loo kala degaa intaas ma u sheegin laakiin sadoo dhahay maxamed cali bu'aale ogaadeen qayb bay ka leeyihiin badhaadha qayb bay ka leeyihiin afmadow qayb bay ka leeyihiin kulbiyo qayb bay ka leeyihiin raaskambooni qayb bay ka leeyihiin jamaama qayb bay ka leeyihiin guush asaa keenay sababtoo ah laba haq ibaadil ma wada kulmi karaan waxa leeyahay kilaas si fiican baad u hadashay taariikhda waad ka la dheeraysay inta Soomaali aad dhibaato u geysatay inta dagaalantay waad qarisay waxa leeyahay hal shay oo ku darsan kara General Maxamed Farah Aidid wuxuu ahaa jabhadii ugu awood badneed Soomaali Ahmed Umar Jasna wuxuu ahaa jabhadii labaad ugu awood badneed Soomaaliya taariikhdana wax ka bedeleen daba dhalifna ma ahan haddii saaxiibkaagi aad la dhimato Aidid wuxuu ku dhintay Ahmed Marjas karkiisa soo saaray Ahmed Marjasna wuxuu ku nool yahay garabkii Aidid soo ah ayuu ku nool yahay laba rag oo Soomaalida maanta ugu sareysay ahaayeen taariikhdooduna waa taariikh Soomaali dhaxalgal u ah waxna ka bedeli karaan ilaa ay maantana shalay roobla bedelay Ahmed Islaamna Ahmed waxa ka socday Ahmed Marjas buu ka socday ayaga bedelay farmaajina siyaad baro ka socday maalin walba waa bedelayna wixii qalad oo socdo saas oo bedelayna insha Allah tabarakallah waana ma ولكن الحاجة ده قاعد يقول كلام نكا قرب نكا أي كويس وقت هاي وايد هورات صوت هورات صلوا أروح السلام ليه ضد واحد أفتح لكن وحنا كيس جبوين كلا قال له جبوين كاس مريحان دي وقبل كجذوم بيدقان وكفك تاج جبوين بقرت قبل كجذوم بقول كسديت مريحان بيدقان أما السجاش بهالله لكن ماشان magaalada weyn bay ka degaan Mareyxaan Kismaayo la dhaho ma garat oo daarada dhisayaan oo isla yihiin dad kula tartala meeshana ilaahay wuxuu ka nasaqay reerka ogaadeen ka leeyahay ma garat meesha hartiya waxa isku haysan jiray Mareyxaan laakiin ogaadeen meeshaas run hadii laga hadlayo iyaga ugu deegaan badan ma garat oo meeshana de meesha doona ka soo galay ilaa run baa loo baahay ma ogdahay hartiga labaynaya
marka mareexaan gobolka gadood cid walba way taqaanaa gobolka gadood miyuu khaldamaya gobolka gadood ee la degaya xitaa magaalada luuq baashi la yiraahdo maxay xuduudda ku taala oo doorashada lagu qabanay magaceedu maxaa taa ogaadeen baxta degan kawar anigu waa maray ogaadeen baa reer afgaabi yaa kale iyo ku oranaya qolaba taa tiraad yaa kale gulay Soomaalidu waxay moodayaan inay ogaadeen yihiin kuwaas baan anigu ugu tagay oo caana kaga cabay magaal anigu qixi waa maray dhulka oo dhan ismaayaan joogay magarat oo buraha waan joogay meel kastaan marnayno marka xitaa baar dheeraan joogay ilaa runa xaqiiqadii laga hadlay reerka ogaadeen ilaahay jubada waa ka nasakhay oo dad kale ku dagaalami jiray oo sugu awood sheegay jiray hartigaas kibir iyo balaayo wadi jiray hadda cid ka bulbulsan jireen mareexaan kana markii dambe watay hawiifta la galeen marka nimanka hadda ilaahay waa soo jeediyay meeshii kale hadda iyaga maamula liibaan dirisado waraad yaad baan u dhawahay anigu taageerada waxaan ku beerinayaa ninkaas Axmed Madoobe dalka wax uu fiican ma jiro mareexaan haday wax tarayaan wax badan wadanka waa haysteen marka anigu waxaan dhihi lahaa Axmed Madoobe waa nin wax dhacsan karo wax gooyi karo maamul sameey karo dadkan isku wadi karo aniga saamisanahay doodaha labada nin iyo dood doodaha ya daahir waan dood ma Axmed Madoobe waxa uu rabaa inuu madaxweyne noqdo ma fahantay dalkaas Axmed dadka soo qabanaysa dadka gaar soo gaaro hada shaqada naga soo gabagabay marka waxaan aaminsanahay inuu Axmed inuu madaxweyne ahaado waxaan anigu dood wanaaga waxaan siiyay ninka mareexaan ninka waa nin hadal yaqaana de wuxuu ku faanana u hayaa laakiin meel kastaan degnaa de meel kastii Falastiin baa degta Israel everywhere weeyaan dad ku xootiya meel kastii badega wuxuu ku faanaya malaninka ogaadeen gabka dhacday dadkii ku aqoonsaday weeyaan dalkaagana u halgamay dawladnimadii Soomaaliya wixii riday ee burburiyayna waxay ahayd intii axmaar adiga laga soo hoosaareeyay anigoo codkaygu laandheeraysan yahay from gobolada waqooyi from gobolka Awdal waa in salaamay waya ay barnaamij weyne waa maasantiin taaro aan la dhigay xabad caawo yaa dhigaysaa waxa ka gaarniyo ninka meesha joogada yaa kala okay daaro aad baad u mahadsan tahay anigu inaan cod buuraadina wiilka warsan galin laba hadlayo mana geeyna la hadlo awra ninka ogaadana soo waa ku salaam cod buuraadina marxaan bay tooganayaan dal la hadlo gowdhe aad baan iga sideen cod buuraadina كاشر أو برادري على مكتب طبعا ممكن نحاسب. داهر بس كذا جيدني هذه نو هذا الكبسوق وجاني سوق قوي هذه وني ورت دد بهال دالك كم مقلي شبود أنا كوكيني يا شكلنا عاسة نميو تاريخ هذي دبلو قلابتو شبوين كسيدان كوكبسني يا حلي كان تجني bugaagta ma garanaysaa nimankan European ka qoreen ama German ha ahaato ama ha ahaato nimanka Ingiriiska bay ku taalaa suugaanta Soomaaliyeed bay ku taalaa hadda buug waxa jira la yiraahdo The Darod Invasion of Jubaland oo nin Ingiriis qoray oo qarnigii mataqaanaa 9aad Darod ku qabsadeen Jubaland ku yimaadeen iyo Suudaanidii kala duwan ay meesha ka jiray nimankii wardayda ahaa ee gaalabadooda ahaa meesha deganaa Axmed oo dhankan isla uu ku talawnay wuxuu dhan ka sheekeynaya doodan nasakhan ee dhaaysa waxa idin keenay siyaad barra idin keenay meesha ni waa propaganda la faafiyay oo mataqaanaa nimanka ogaadeen adanahay meesha mataqaanaa maamulka iyo xilka inaan soo magalsa soo fuulo mataqaanaa laga fogaanay way marka sugaantana way ku cadahay markuu lahaa gabaygii ku jirtay dagoodi iyo ajuuraan marba dad u wacnaayeen markii diriri waayeen si dahabka loo boob awliyaanka baari dagaal loogu dowgalay niyo marka anagu bashas waxa weeyay kumaana tagin awal jilaa iyo sheekay raqiisa iyo waxaas niyo waran iyo awood baan ku tagnay dadkii meesha joogayna aan mataqaanaa kaga saaray
kolay ku tahay nimankaa mareexaan waa naga dambeeyeen xil dambe bay ayagu yimaadeen oo dhankan gado ay soo yimaadeen marka nin waa saas dee maantana waan joognaa waxaan ku joognaa siyaasad iyo aqli iyo maskax waana joogaynaa insha allahu tacaala ciddii su-aal ka qabta ama dood ka qabta ama wax isku hay intaqaan wax keeni karta nio ha timaado media oo laga qeylqeeliyo iyo wax laga shisheego iyo shuxshux iyo wax noocaasa nio cid wax ka bedelaysa ma jirto nio ninkii magaranaysaa wax isku haya ama laandheeraha kismaayo mataqaana magaalada kismaayo markii laga reebo jubbooyinka labada jubbo waan deganahay marka intaas degmaan ku leenahay marka magaalada kismaayo dee anagu dad maanaan ahayn dad xeebeed oo dad waxaan nahay daayiro xoolo dhaqataa waa si garan kartaa dad xeebta u badan ma nihin dad waxaan nahay xoolo dhaqato oo dhankaas afmadow ilaa garanaysaa ilaa kenya xoolahoodu daaqo marka magaaladaasna dee nimanka harti unbaa magaras deganaan jiray qarniyaal isdaba yaalla iyo ummado kale marka ciddii ka qabta dood inay kismaayo ay qabsato ama jubbaland halkeeda la wareegto nin waxaan leenahay aayara soo tartama haddii kale dee waxa weeye dee qori caaladii adeerkay markasta wuxuu dhaano meydsitaan soo galay dee meydkii baan kaga baxaynaa waa intaas waa kusalaama daaro asalamu calaykum codadkii qiimay marka codadkii baxay qiimay marka tirada dadka codadka tirada anigu waan qorayay mogta nin warsangeli halkaan furan waa caayay mid kale warsangeli soo furan والله ولا عايز لكن شر مدبر هذه الساعه warwaydii salaamay xuseen hudle in adeerkay baan ka bilaabaya qabyaaladiistan war dhammaan daaroodka kala salaamayaa habaryaraha iyo abtiyaasha iyo habargidin beerka ka hortooni waa idin salaamaya idinkuna markaasaan inta kala salaamaya aada weyn uroogu salaamaya daayro ninka madaxweyne meesha taalo laga garab qaylinayaan arkaaye arag haddaan dhegeysta xogaa nin akademigu xogaa oo weliga soo meel ka ma maqlin ma fahamta daayro ana hadlay maad maqlina warkaawa igu horeysato laakiin saa hadda uu xeeri kismaayo aad xeerisoo kale sida hadda u sheegatay inaad xoolo dhaqataan tihiin mataqaanaa daalada fishinkii oo jubbaland taas waa si oo micnaha waa akademigu waa nin waxa u yaqaanaa suugaanta iyo xagga taariikhda iyo